in dadka la heshiisiiyaa umamka dhaqan ahaan iyo taqaalid ahaan dad baa u quma, dad baa u kaca, dadkooda ahlu caqliga, dadkooda cuqaasha, dadkooda salaatiinta, dadkooda waaya aragga, waxay ka dhigan yihiin dadkaasi bulshada dhaqankeeda marka loo eego waxay uga dhigan yihiin addifaac almadani qoladan maxaa la yidhaha dabdamiska marka meel dab ka dhacaba niman baa loo yidhaha dabdamis la yidhahdo markiiba damiya dadkan waayeelka ahi ummadda waxay u yihiin waa dabdamis khilaafaadka iyo muranka iyo isqabsiga iyo isdilka iyo reeraa kala furmaya iyo waxaasoo dhamme waa xaraa'iq bulshada ku huraya hadday bataana bulshadaasi way gubanaysaa bulshadu waa gubanaysaa ugu dambayn dabdamis cidda ka ahi waa waayeelka waa cuqaasha waa salaatiinta waa culammada waa waxgaradka waa dadka heeganka u ah inaanay ummaddu gubanin inaan ummadda dabku wada qabsanin ayuha alaxiba bini aadamku hadduu isqabto siyaabo badan buu isku dayaa inuu xalka u gaadho bini aadamka badh wuxuu isticmaalaa win-win situation waxay yidhaahdaan meel dhexayn la isugu yimaado adna aada guulaysato adna aan guulaysto nin la jebiyey iyo nin jabaytoonaya inaanu jirinee la heshiiyo maa-il wajhiga in dadkao dhan loo ilaaliyo waa sulxigaa keena bini aadamka badhna zero sum game buu isticmaalaa wuxuu isku dayaa inuu awoodda wax ku muquuniyo waxay gaaladu yidhaahdaan qiso kutubtooda hore iyo waxooda ku qoranoo shamshum theory ay yidhaahdaan bay soo sheegaan shamshum theory